Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aynu hal mar dareemayaasheena u wada celino sanadadii ugu horeeyay ee soo saarista rasuulkeena calayhi salaam. Aynu ku laabano magaaladii barakeysneed ee Makka al-Mukarrama. Waxa aynu arkaynaa inan da'yar da'diisana lagu qiyaasayo 10 ilaa 12 sano, laakiin ka yar oo aanan gaarin weli da'da qaangaarnimada. Waxa uu sitaa seef laga saaray galkii ay ku jirtay. Haddii aad aragto indhihiisa, waxaad ka dheehanaysaa geesinimada ku jirta gudihiisa. Waxaad moodaa koox kaamil ah oo wada geesiyiin ah, laakiin waxaad ka akhrisanaysaa indhihiisa sidoo kale inuu murugaysan yahay, weliba in uu doonayo inuu aargoosto. Indhihiisu waa ay shubmayaan, weliba ilin aan kala joogsi lahayn. Dadka oo dhammi way qeylayaan, weliba hadal dheer waxa ay ku wada dhawaaqayaan inanka yari waxa uu sitaa seef. Laakiin si lama filaan ah waxa uu soo horbaxay rasuulka Alle calayhi salaam. Waxa uu ku dhahay, maxaa kugu dhacay? Inankii markii uu arkay maqlayna dhawaqii rasuulka calayhi salaatu wassalaam, waxa uu neefsaday qof nolosha ka sabray laakiin dib ugu soo noqday. Waxa aad moodaaba inuu hadda helay ruuxdiisa. Waxa uu ugu jawaabay, yaa rasuulallah, waxa aan maqlay in lagu qafaashay oo lagu qabsaday deedna lagu dilay. Waxa uu rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam eegay indhihii yaryaraa ee wiilka da'da yaraa. Waxa uuna ku yidhi si naxariis iyo weliba xanaaneyn ku dheehan, haddii uu arrinku sidaa ahaan lahaa, maxaad samayn lahayd? Go'aan oo aan loo meeldayin, weliba saxan ayuu inankii yaraa ku dhawaaqay. Waxa uuna yidhi, yaa rasuulallah, ciddii sidaas ku yeesha waan dili lahaa. Saaxiibayaal, iyo oggolaada inaynu u soo wada tilaabno dagaalkii Badar. Waxaanu ognahay oo aanu khilaaf ku jirin in dagaalkii Badar muslimiinta cadadkooda iyo weliba ciddadoodu ay yareed. Rabbi subxaanahu wa tacaalana uu ku kabay malaa'ig. Laakiin ma ogtahay mise maqashay in malaa'igta ay ka soo degtay samada kuna soo degtay ceelkii Badar ay lahaayeen hal suurad, hal shakli, hal qaab, oo ay dhammaantooda isku wada ekaayeen min hogaamiye ilaa ay kan la hogaaminayo. Laakiin ma ogtahay in suuraddii iyo shakligii ay wateen uu ahaa shakli uu lahay geesi ka mid ah geesiyadii Badar, shakli uu lahay saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wassalaam. Ma ahan cid kale, waa inanka yareenu ku soo aragnay sanadadii ugu horeeyay ee soo saarista nebigeena wadooyinka magaalada Makka al-Mukarrama. Waa isla inanka aynu hadda ka sheekeynayno. Bal qiyaas, maxaa ka sharaf badan in suuradaada iyo qaabkaaga iyo shakligaaga uu ku soo dego Jibriil calayhi salaam. Ma ahan keliya Jibriil, ee waa 50,000 oo malag uu hogaaminaya Jibriil, lana doonayay inay ka qayb galaan oo ka qayb qaataan dagaalka Badar. Aan idin xasuusiyo saaxiibayaal, barnaamijka kan inuu yahay barnaamijkeenii kumaan ahay. Waxa aan doonayaa inaad sheegtaan magaca uu leeyahay saxaabigan aan tilmaamayo. Haddii aan sii fududeeyana, saxaabiga kani waxaa dhashay rasuulka calayhi salaatu wassalaam eedadiisa. Waxaana asiga eedda u ahayd Khadiija bintu Khuwaylid radiyallahu canhu wa ardaah, ee uu la dhashay aabihiisa. Waxaa abtiyaal u ahaa rasuulka adeeradiisa Xamza iyo weliba Cabbaas. Waxa ayna weliba ilmo eeddo iyo weliba ilmo abti ahaayeen علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يولي عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هكريبين وهكتجين وحي المأبتي يلمئد اللحمي وضعهاين رسول كان عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله. وحا انتاس والشرف كرامي عزاء أسي دير in uu zawj u ahaa gabadhii uu dhalay. Dadka ninkii ugu khayrka badnaa marka loo bixiyo dhinaca nebiyada iyo weliba rususha, Abubakr Siddiq radiyallahu canhu wa ardaah. Waxa uu zawj u ahaa Asmaa binta Abi Bakr Siddiq, ukhtu ummuna Caaisha radiyallahu canhum jamiican. Haddii aad garatay, waad nugula soo wadaagi kartaa dhanka hoose ee commentiga. Barnaamijka inoo qurxi oo like inoo saar.
qasabna ma ahan inaad nagu soo biirto, laakiin haddii aynu u qalanno waad nagu sharfi kartaa subscribe-taada. tilmaamtii sifaynta aynu soo bixinay haddii aad garatay waadba garatay, laakiin haddii aad garan weysay, haddii aan sii jilciyo, waxa uu ahaa ninkii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam yiri nebi walba waxa uu lahaa xawaari iyo weliba gargaare. anigu xawaarigayga iyo weliba gargaarahayguna waa زبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، بطل من أبطال المسلمين، بطل من أبطال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.